السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رالي إيجا هذا واحد عضي أنيجو فيسبوك وجر إن بيترق إيجا دعي ما نوجين إنه تلفونك يبوحه مرجع هاد يرن دبك قشدي كيور واتر تري سببت عن ما أنت لايف كان أسوأ قلي لما أن أمد الصومال هرت مركور وادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسببت عن ما أنت لايف كان أسوأ قلي وحويان sababta aan soo galo waxa weeyaan waxaad ogtihiin xalay waxaan magaalada Minneapolis gobolka Minnesota si dhuumashaa ku soo galay hogaamiyihii maamulkii fashilmay ee Khaatimo Cali Khaliif galay. sababta uu yimi Cali Khaliif galay magaaladan waa magaaladu deganaa oo guriga uu ku leeyahay reerkiisii baa jooga caruurtiisii baa joogto waa magaaladu ka shaqayn jiray laakiin si dhuumashaa ayuu ku yimi. sababtu ku soo galay ayaan rabaa maanta ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego iyadoo la qarinayo. waxaa dhacday dhulbahante saad ogtiin Soomaaliyeey siyaasadda waa ku kala qaybsan yahay. dhulbahante garbiyo badan ayuu kala noqday qof walibana yani siyaasadda waa lagu kala qaybsan. waxaa dhacday bishii August ayaa waxaa weerar lagu qaaday guri gabadh dhulbahanta oo Naaley Axmed oo reer cilmiya oo la yiraahdo Rooda Dhiif hooyadeedna ay tahay majeerteen Beesha Cumar Maxamed. waxaa dhacday kala qaybsanaantii dhulbahante ayaa dadka siyaasadda ku kala duwanaadeen. maalin ayaa waxaan soo geliyay anigu Facebook-gayga Cali Khaliif oo aflagaadeynaya Beesha dhulbahante. gabadhaas ayaa magaceedii waxay ku bedelatay Rooda Buntlander. magaceedii markay Rooda Buntlander ku bedelatay walkayga bay soo gashay waxaan ay ka hadashay dhibaatooyinku ninkani ummadda u geystay iyo tolka uu kala qaybinayo. qof waliba reer abtigiis waa jecel yahay. aniga idin la hadlaya isaaq baa dhalay habar yoonis reer Caynaashe reer abtiga isaaq oo dhan waa jecel qofkuna waa xor. waa dhacday gabadhii markay commentigii bixisay gabadhii waxa ku bilowday cay iyo aflagaad iyo weerar dhinac walba leh oo waliba niman waaweyn xitaa ay ku sameeyeen. arrintii way xumaatay bishii August 18keedii 2015 saacadu markay ahayd 10:30 PM waxa gabadhii ku duulay 3 gaari. waxaan wada tusaya documentigii oo dhan halkan yaala waa sababta Cali Khaliif maanta magaalada u joogo. waxa ku duulay 3 gaari waxa hogaaminaya ciidankaasi Cali Khaliif galay walaashiis oo la yiraahdo Aniso Khaliif galay. waxaa ku jiray oo la socday ciidanka gabadha gurigeeda ku duulay Axmed Faarax Cadde oo ku magac dheer Axmed Dheere iyo ninka la yiraahdo Abshir Cabdinuur oo isaguna SNTV hadeer wariyaan ka ah oo kamid ahaa kuwii Cali soo dhaweynayay Cali Orday. waxaa la socotay qola iyaguna sheegtay qolada Bahar Same gabadh la yiraahdo Cawaqaadi Kabacadde iyo gabadh la yiraahdo Ina Suulo iyaduna Bahar Same ah. wiil yar oo isaguna 19 jir ahaa laakiin aan dhulbahanta aan qabiilku aanan garanayn oo hadda dalka laga saaray waa la masaafriye iyo wiil yar oo 14 jir isagana garan meeyno cid uu ahaa laakiin uu xidhan yahay xabsiga ku jira. gabadha gurigeeda way ka maqnayd roob baan daahi. roobkii oo daaya oo gabadha gurigeeda ka maqan tahay ayaa waxay ku khaldameen guri oday cadaan iyo islaam cadaan oo isqaba gurigiiba kor kaga fuuleen iyagoo gurigii burburinaya ayaa odaygii islaanti boolis ugu yeereen. markay arkeen inay khalad ku jiraan guriguna aanu gurigii gabadhay u socdeen ahayn ya gurigii gabadha helay. ciyaalkii gabadha daaqada ka arkay daaqadii bay jabiyeen gaari bay jabiyeen alaabtii bay gurtay. caruurtii baa booliiska aad waxaa yimi meeshii gawaari ka badan 30 gaari anu dadkii tagay meesha ee booqday ayaan ka mid ahaa. 30 gaari baa tagay waxaa baxsaday Abshir Cabdinuur oo maanta SNTV ka shaqeeya iyo Axmed Faarax Cadde iyo 2 nin oo kale. waxaa goobtii lagu qabtay waxaan u tagay Aniso Khaliif galay oo jeebaysan waa idin tusaya sawirradii Cawaqaadi Kabacadde oo jeebaysan Rooda Suule oo jeebaysan iyo labadii wiil ee midna uu ahaa 14 jirka midna ahaa 19 jirka waan idin tusaya Soomaaliya. anu dadkii meesha u tagay baan ahaa ee ugu horeeyay. waa la soo dajiyay dadkii way wada indha xidhnaayeen jeebad baa ku wada jibsan. gabadhii victimka ahayd Rooda Buntlander ayaa la dadkan ma taqaana hal qof mooyaane intood kale dhan way garan weyd
hal qof mooyaane qofkii garatana ina khalif galayd buu ahaa waxaa dhacday anigii in la weydiiyey aniguna labadii wiil yarana waa garan waayey waxaan gartay labadii qof ee kale waa ina qaadiyey ina suuli gabadha la yiraahdo tilmaantay labadii wiil yarana bixiyeen iyo gaarigii fakaday waxa wata Axmed Faarax Cadde iyo Abshir Cabdinuur iyo laba nin oo kale nin dheer buu ahaa Axmed Faarax Cadde magaalada laga yaqaan waa nin aad u dheer iyo Abshirkaas oo hadda ka helay SNTV shaqo Soomaaliya maxkamadii baa bilaabatay waxa lagu jaadgareeyay criminal felony property damage waa idin tusayaa sawiradii timekaas ay boolisku qaadeen bal hadda baan idin tusayaa waxa la isku qarinayaa maanta ma jirto warqadaas aad aragtaan waa Spring Lake Park Police waad u jeedaan waa dhaawicii ay u geysteen guriga waxa ay ku qoreen FIFA khaatumo cali khalifa noolaado iyo cay aad idinku afkiina ku arki doontaan waad u jeedaan Soomaaliya taas waa tii koowaad waa garaajkii guriga iyo daaqadii number 1 okay warqadaas aad aragtaan qofkaas gacmaha taagaya waa nin khalif galay waa u jeedaan waa qofka gacmaha taagaya ee boolisku ku hayaan baawrka boolisku waa nin khalif galay okay wiilkaas yar aad aragtaan geeskaas waa cunuga yar ee 14 jirka ah ma garanayo qabiil uu yahay magaciisa noolaba sheegin oo ma la ogola hadduu ilmuhu teenager yahay in magaciisa la sheego okay kaas waa ninka 19 jirka isaguna waa u jeedaan Soomaaliya cali khalif galay walaashi wataa wax la isku qarinayaa ma jirto anigu waxaan sameeyay wata gacmaha kor u taagaysa waa nin khalif galay kor waad akhrin kartaan magaca waan idin soo gelinaya waraaqaha waa u jeedaan okay warqadaas halkaas aad ii dhigasaa Spring Lake okay qofkaas aad aragtaan waa waqti ka bacde waa gabadhaan idin sheegaya ee la degta qolada bahar sabe aabaheed uu sheegtaa oo odagii kuugi la foola ayaa dhalay waa waqti ka bacde waa u jeedaan waa jeebaysanta okay gabadhaas aad aragtaan Soomaaliya iyaduna gacmaha kor faankaasi waa faankay wateen waxa iska lahaa nin u dhashay beesha ogaadeen oo cawaya guriga ay wada degan yihiin waxay ku tiri reerkayaga ayaan ka yimi Afrika oo aan ku soo qaadaya codkii aan ka duubay ayaan hayaa gabadhaasi waa Rooda Suulay waa la xukumayada 2 sano probation la galiyay falani baa lagu qabtay 14,000 oo garaxna waa lagu xukumay iyo inay 2 bilood wadada xaaqdo okay baabuurtii lagu qabtay wateen waa gaarigaas faanka ah aad aragtaan ee bluega ah waxa iska lahaa nin u dhashay beesha ogaadeen oo guriga degan oo miskiin ah xaaskiisa ayay anigu been idin sheegmay Soomaaliya waxaan idin dhageysiinayaa codadkii aan ka duubay xaaskiisa ayay waxay tiri reerkayagii ayaa ka yimi Afrika faankana si waan ku soo qaadaya okay dhaawacaas waa dhaawacii guriga u geysteen oo jeeda aragtaan gaarigii ay burburiyeen waxa lahaa nin Rooda dumaashigeeda oo ka yimid North Dakota waa gaariga lagala baxay dahabka labada laptop iyo telefoon iPhone waa telefoonka iPhone waa ka maanta ina khalif galay isticmaalayso okay tan waa islayadii oo kale waa damage ay geysteen ee guriga ay u geysteen waa u jeedaa okay kuwaas oo dhan waa idin tusay Soomaaliya maanta waxa la isku harayaa ma jirto sababta cali khalif magaalada u yimi hogaamiye ku leeyihiin hogaamiye khaatumay ku leeyihiin khaatumo okay waxaan oo fayl ah waa idin soo bandhigayaa ma sha Allah wax la qarinayaa maanta ma jirto waa u jeedaan waa Anoka County Government Center waa maxkamadda Anoka markay judge garaysay xukuntay okay goobta habeenkii saan idin soo sheegay waa u jeedaan Soomaaliya inaan documentigii oo dhan idin tusay
sanadin soo sheegay goobtii waxa lagu qabtay 3 gabdhood iyo 2 wiil oo yar yar oo iyagu dhulbahanta ahayn waxa fakaday Abshir Cabdinuur oo maanta ka shaqeeya SNTV sheegtayna inuu wariyay xalayna kamid ah kuwa Cali Khaliif soo dhaweynay iyo Axmed Faarax Cadde iyo 2 nin oo kale oo ilaa hadda aanan haynin waxay ahaayeen laakiin ay ahaa beesha baharsan waxa dhacday qof kasta waxa lagu soo daayay $5,000 oo beer ah waan hayaa waan idin tusayaa waraaqahan soo gelinaya horena waan soo geliyay page-kay maxkamadii ayaa bilaabatay maxkamadii markay bilaabatay waxa lagu xukumay felony property damage first degree iyagii baa kala hadlay inankii yaraa adin lahaa 19 sano jira waa laga saaray wadanka waa la musaafiri inankii yaraa 14 jirka ah waa xidhan yahay saddexdoodu waxay ku soo baxeen lacag $15,000 ah waxaana ay qabsadeen looyaro qofkiiba uu yahay $12,000 lacagta 18,000 oo kamid ah waxa laga soo diray Soomaaliya waa lacagtii khaatim loo ururinay waa lacagtii khaatim loo ururinay ee waliba laga ururinayay beesha Maxamuud Garaad habarta khaatim la yiraahdo la magacaabay waxa qarashka ugu badan bixiya beesha Maxamuud Garaad lacagtii 18,000 oo kamid ah Cali Khaliif ayaa soo diray si walaashi loo badbaadiyay xukunkii waa dhacay gabar gabdhihii kamid waxa lagu xukumay 2 sano probation ah qof kasta website-ka dawladdu galaya Rowda Muse Google garay waxa dhacday walaashi soo habeen dhaweyd maxkamadii kale socotay walaashi soo joogta ayaa tir waa leeyahay been ba iska qorqoratay lacag badan buu soo diray wuxuu yiri istaafa oo iska dhic waa ninka dhan ee kule maamul ayaan matalay haddaba maxaa lagu weeraray gabadhani waxay meeshan ku qoratay Rooda Puntlander nacaybka Cali Khaliif u qabo beesha ma jeerteen war beesha ma jeerteen waa tol ma jeerteen iyo dhulbahante ilaahay baa isku tolay ilaahay baa iska beeray waa tol meel ay ku kala tagayaan ma jirto tolkuna marna waa isdilaan marna waa heshiiyaan gabadhaas dhan waxaa gurigeeda lagu burburiyay Soomaaliya Rooda Puntlander ay ku qoratay Facebook war bal ilaahay baan idinku dhaarshay ninka gabar diyaarad u soo raacay ee dacwad walaashiis dambi ay geysatay $18,000 u soo diray ee maanta diyaarad u soo raacay Soomaaliya muxuu matalayaa Cali Khaliif galay wuxuu isku diray dhulbahanta taleex buu tagay wuxuu isku dilay 2 jilba Maxamuud Garaad oo Nuur Axmed boohoodu yimi wuxuu isku diray 2 jilba Axmed Garaad saxdeer iyo kala baydhiyo tagay wuxuu isku dilay Qayaad iyo Bahar Sabe hawdkii yimi wuxuu isku dilay Umar Maxamuud iyo Bahar Sabe kan shaalu yimi wuxuu isku dilay dhulbahanta iyo habar jeclo war bal ilaahay baan idinku dhaashay markuu ummad dhulbahante ummadii oo dhan ku soo diray ummadii oo dhan u soo baabi'iyay ee dhulbahante sumcadoodii meel walba la dhacay ayuu maanta Minnesota wuxuu u yimi in walaashiis oo dambi samaysay oo aragtaan Soomaaliya inay jeebaysan tahay oo u jeedaan in uu lacagtii lagu ururiyay ma khaatimo looyar ugu qabto oo dambi ku soo daayo يوم ما أنت نكاس ديارة أسرة عدو مشاهد وصقلة سومالي ما إسويديسي نكاني إلا وهو جامية أنا وما حي ومشاهد وصقلة شان يلا بقى تنقف أوجا أمد وياي أبشر عبد النور نكود كوا جوريجة تجابيه وياي وشان يلا بقى تنقف ويا هذا SNTV ما شكله كهلا ووريان هاي يا سودوي وحمر خاتي إيجا إنت كاس الدم بيجا قلت والله حدي ويب-سايت دادي يميلوا بقول كجرتا ياسين دعاء أو أوريات وذا تقانان يا حتى الريبورت هذا أركي ليه كتوس ما أنت نوري قاعد وذا توصي على خلي مركو اسكو صور للبهانتي يطلقي هارتي مركو صور كلا الدلي للبهانتي إساق إسكال مركو صور كلا الدلي للبهانتي بدو يسي مركو صور كلا الدلي ما أنت وحو يمي إنو من يابرس كلا الدلو أولي بخالد ولا شيء سماي ساي
taageero oo yiraahdo lacagtan aan ku bixinaya 18 buu soo diray lacagta Aniisa Khaliif Galeen looyarka loogu qabtay waa lacagti Baashi Maxamed Garaad ururisay waa lacagti Baashi Maxamed Garaad ururisay 15 ayaa lagu soo daayay kibir 3 dhood 10 iyo barkaabin iyadoo roob da'ayo inta guri tagaan ku soo burburiyay ma jeertaan bay taageertay war ma jeertaan aniga waa tolkay war ma jeertaan haday xumaadaan iyo haday ismaadaan ba ilaahay iga dhaliye war hartibaan ay diidi maayo hartibaan ay diidi maayo ma jeertaan waa niman hartiya siyaasadda waan ku kala duwanaan karnaa waan ku kala qaybsanaan karnaa laakiin waa inaan codkay ka dhacsado inaan calaacalo oo aan mar walba sidii inaan gumeedka u hadla maaha war hay ma jeertaan oo Soomaaliland waxbaa naga dhaxeeya war hay idinkana Ali Khaliif Galeen dhibaatada uu dhulbahanta ku hayay ee Soomaaliya taalayo Soomaaliya maanta la soo galay Minnesota waana arintu dhumashada ugu yimi nacaybka iyo cuqdada Ali Khaliif Galeen Soomaaliya ka buuxda waa taa maanta uu xalid dhumashada ku soo galay isagoo bacayar sita bilaahay baa idinku dhaashay ma waxaad aragteen hogaamiye dhan oo Soomaaliyeed oo maamul sheeganaya oo isagoo bacayar sita la soo dhaweeyay bac sidii qoladii IMT bacdi IMT bariga aanu Mareykanka soo galo kale yusite ummadda Soomaaliyeed horta waxaan u hambalyeynaya oo halkan hambalyo maanta uga diraya oo aan u ducaynaya waa maalin jimce Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waa nin indheer garada waa nin wax garada waa nin wax badan og muraayadu ka soo xidha markaas wuxuu ku waashay war hay heshiiskii aan la saxday Siinaanyo war hay lama funinin war hay indhuhu ka soo xidhay saas uga dalac markuu yiri ma magacaabi kartid Muuse wuxuu ku yiri ha magacaabin Yaasiin Maxamuud Xiir oo ahaa nin jaamac siyaada wasiirka arrimaha gudaha wuxuu yiri ma magacaabi kartid waroon naga tag buu yiri Soomaaliya wax maanta aan qarinaya ma jiro gabadhaas bishaas ayuu ku dhacay weerar sanadkii 2015 anigaygan idin la hadlaya fiktan baan ahaa 2014 ayaa 25 qof oo bahar samay isku kay tageen maxaa la iga raaca bal waxa la iga raacaan maanta idin sheegayaan ay dadkaas igula dagaalameen ee maxkamadaha la igula tagay ee Seattle laga yimi ee Boston laga yimi ee Virginia laga yimi ee 20 states kaga yimaadeen Soomaaliya waxa dhacday markii la aasaasay ururkii USC ee daacadda ahaa ee Allah u naxariistay ay Saada Cali Warsame ayaa noolay anigu waajib baysna waxaan ahaa nin SSC waxaan arkay in dhulbahantani u soo baxay Saleebaan Ciise Xagla Toosi u daacad yahay waxaan sameynaya recordino waxaan wacay madaxda Soomaaliland waxaan wacay marba dhinac Siiraanyo wararkii aan ka duubay baa ku jira Maxamed Kaahin oo wasiirka arrimaha gudaha maanta xataa waa ka duubay waxaan ka duubay Cadami waxaan ka duubay Nuur Taani taliyihii ciidamada Soomaaliland waxa dhacday habeenada kamida inaan wacay Axmed Cabdi Xaabsade oo ahaa nin bahar sama waa loo sii digay markii loo sii digay ayaa waxa laga yiri islaali waxa ku soo wacay nin noocaas waa wacay waxaan sheegtay nin reerahoodii wuxuu yiri orayada wase warkaaga waa hay soo wac waa qosla wargaadin loo sii digay arintii markay halka maraso ayaa waxa dhacday waxa yimi Boston iyo meelo badan bay iskaga yimaadeen guri aan deganaan jiro Chicago iyo 15 ku yaalay hool ku dhoobay ku qabsadeen shir baasha bahar sare shirka macnihiisu wuxuu ahaa in loo ururiyo dhakhtar ku yaalay tuuladooda lacag waxaan maanta idin sharaxayaa dibkii gabadha rooda Puntland ku dhacay kiisi la midka ah aniga igu dhacay baasha bahar sare maalin walba Soomaali waxay aragtaa aniga Ali Khaliif ku dhagan oo bahar sare ku dhagan ee maxaa sababay lama yiraahdo war wallahi in aanan maanta hal kalmado beena war anugu dadka waa iska celiya dadka ma doonta hal kalmado beenana ma sheego xadiiska beenta al-kadba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujur yahdi ila an-nar beenta waa waxum naclat Allah ala al-kadhibin beenta waa waxum waa dhacday
ماشي مركي أنا أركي يوغو كسو دريرية قرشها لسكوكي محوها ماشا دكتور لوغرو ولو waxaa kacday ay xaabsan adeeruhu leeyahay in markoo safaare oo bosta ka yimid waxay sameeyeen waxay yiraahdeen odagii xaabsade ayaa gacan qalashay marka waa in lacag loo guraayo de xaqaasi Malaysia dhakhtar lagu geeyaa qof kamid iyagii ayaa ii soo sheegay oo meesha joogay hal kalmad oo been wallahi baan u sheegay marxaatiyaasheedii meesha ku jiraan waxaan soo qoray gacanta kitaabku qalajiyay Malaysia ma daweyn kartee كل جويننا نك أصلعها كوك صاريننا ويربى على يسوق هذا يدل الله كلا هاري يدل الله كلا هاري وحاكو جرين من علماء وذا تشيغاني خليف موسى دكاوي أيا كمدها بل صومالي وحبان إذن تصيا إذن شيء والله بأن هالكلمة بين وشيء ما نقول بروح هذا عبد الحكيم محا تركي كنتراي عبد الحكيم محا بحر السماء كنتراي وروحاني أورامو ميلي نغا سو غلين من نقان و أورامو وريكن و أورامو وروا جدا عقدتي قبان ولا عرري ويربا لي سو قاد ويرك marka lagu soo qaaday ee soo weeraray social media wax walba aniguna waxaas ma jacanjo gabar marka soo calmayeen ku leeyahay reerahaas la daganta oo meesha county ka shaqeysa ayaa waxay soo qaaday social security address-kaygi daawooyinkaygi magacaygi Facebook bay soo gelisay Facebook bay soo gelisay waa waams waxa dhacday ninka la yiraahdo Abshir Cabdul oo bas sidii wada sidiga baska wada ayaa isagoo sidoo kale aflagaada baska ku saabsan soo geliya meeshii oo ay waa waams Allah u naxariiste sheekadii halka mar soo meel xun ay naga taagantahay ayay hooyaday oo 7 jeer xashtay oo xaajiyada ayay ka xishoon waayeen xitaa niman wadaadday ina wuxuu ahaa ina koo safaare wuxuu soo qaray dhiladii ii door Khaliil Muuse dhakaawa comment u bixiyay xaaladii oo halkaas marasa ayaa waxa dhacday waxa magaalada yimi waxa la dilay Saado Cali Warsame Allahu naxariis Saado fanaano Soomaaliyeed bay ahayd waxa la yiri hal lagu mudaharaado madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markaa joogay anigu waxaan kamid ahaa dadkii mudaharaadka waxa yimi ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid waanu la fariisanay gudida waxaan ku jira mudaharaadka qolo walba lacag baa lagu qoray waad aragteen sawirada ra'iisul wasaaraha markii aanu taganay ulbaxante habeenkii waxay ogaadeen inuu la socdo xasan sheekh maxamuud wasiir bahar sama beeshooda leeyahay Daawud Bisle yaa la socday ninka la yiraahdo Abshir Cabdul Nuur iyo ninka la yiraahdo Ahmed Dheere Ahmed Faarax Cabde ayaa waxay soo qoreen Saado Cali dhilay qof meeytiye oo eedadooda oo dhimatay yi soo qoreen Saado Cali dhilay Soomaaliya Ilaahay baan idinku dhaarshay qoraaladii baan hayaa wallaahi oo billaahi oo talaahay mudaharaadkii baa dhacay mudaharaadkii marxaatiyaashii meesha ku jiraan sawirkiina waan soo dhigayaa doontoonkan ku mudaharaadane laba nin ayaa dhinacayga taagnaa labada nin ba maanta Facebook ay gula jiraan nina waa warsan gali nina waa dhulbahanta iyo aniga is dhinac taagan Abshir kan leeyahay SMTV ee baska wada yaa wuxuu soo qoray waxaan mudaharaad ma ahayn waxa hogaaminayay nin bidaar leh iyo nin indhala iyo nin curyaana ninku ragu caaya mid waa aniga mid waxa weeyaan waa yarka aan ii sheegay dhulbahanta midna waa yarka warsan way carareen nin qora shacabka media oo la yiraahdo goodo oo Umar Maxamuuda saan jeclahay ayaa waxa u tagay nin la yiraahdo Cali Xaraare qoladii bahar sare goodo u diray lacag waxa la yiraahdo Cabdi Xakiim waxa ku soo cayda website-ka shacabka media bas shacabka news ba ma garanayo sultan goodo la yiraahdo wuxuu soo qoray goodo nin Yaman kaga soo galay diinta Masiixiga wax been aan sheegay kalmad been inaan in sheegay wax walba waa yaala way soo qoreen ninkii baa soo qoray qoraalkii ilaa qoraal waxay ahayd ay beesha baarsama ka dambeeyaane waxay soo galiyeen Facebook kasta oo baarsama dagaalkii halkii naga bilowday
informationkaygina waa kuwa hore usoo dhigay informationkaygina waa kuwa hore usoo dhigay Soomaaliyeed dagaalkii markuu halku ka bilowday aniga iyo waxaanu noqonay 100 qof oo beesha baarsama oo 100 qof oo Mareykan joogaan waxa soo raacay dad 500 oo qof ka badan oo adduunka meel kasta jooga beesha aan ka dhashay waa beelaha ugu balaaran dhulbaxanto waa beesha Maxamuud Galaad beesha Jansen uguna tunka way hal qof ha hadina baa ku markhaatiyaasheedii baa meesha yaal markhaatiyaasheedii ayaa meesha yaal maxkamadda isla gal maxkamadda waxa ay ugu yiri 20 qof oo beesha baarsama rag iyo dumar oo kala hadhin markhaati been waxay soo kaxaysan cali xaraare markhaati waxa kamid ah reer Minnesota Liibaan Xasan Quruuf oo maanta ku jira ii jeeda oo ku jira dadkii magaalada joogay kamid ah Liibaan oo hadaan been sheegayo nin islaama tahay qabo kalmad been hadaan sheegay maxkamadda bay la galay maxkamadda bay waxay markhaati u soo kaxaysteen ninka la yiraahdo cali xaraare يا مرخاتي لو سو كحيست والله 20 قف يعني قف كيبا وحو كو قصدي $5 بالله كو قصدي إله سبحانه وتعالى قردر ما قولست نين قردرني ما قولست ظلمي انا إلهي ما جعل دين تيدي بكو كفي قرادس يوصوني صلاة دي ما تجي ارتقى بكو كفي دين تيدي كو كفي وحي انا قال لي مكو سوقل شرفتي دي بكو كفي والدكي oo 7 jeer soo xashibay oo ka xishan way wallahi oo billahi waa maalin jimce Soomaaliya kitaab ayaan gacanta ku saaraya waxaad aragteen anoo reerka ku kacsan in aan ka gardarneen ya ilaahay googi rasuulku gooya sagaashan ka magac Allah baan ku dhaaranaya in ay dulmiyeen oo dulmigu soo doonteen waxa magaalada yimi markaan waxaan khaatum magac khaatumo iyo magac dhubhantaan amsana waxa magaalada yimi cali khaliif galay arinta waxa laga socday ilaa iyo Soomaaliya way soo wacay wuxuu gal adar waa la dhameeynayaa raali ahow maxkamadda adigu cancel xaal baa lagu siinaya waa ka gardaran yihiin Soomaaliya maxkamaddaydii baan cancel ilaa waxaan ahay nin iska daacade maxkamaddaydii baan cancel ninkii dhammaa ee hogaamiye ahaa ee soo tagay ila ballamay tayd markaa ka sala waa gooy waa carar toodi baa timi ilaa waxa la nin gardaran ma guuleystee dhakhtarkii baan tago waxaan soo qaaday warqad inaa xanuunsanayo arrintaasi ugu dhacday bahashaydii baan dib u soo noolaystay markhaatiga waxa u soo kaxaystay ninka la yiraahdo cali xaraare oo ay siiyeen $200 cali xaraare markuu markhaatigii oo dhan dhameeyay إلا واني خائنه أيا ليلي عليو عبد الحكيم يا أدوكم ما استقانا مركاسو وحو يري مايا وحا ليلي ولي ما يساركتين وحو يري مايا وحاني رجاجو نين كان يا أنو وحانو كسو ذكرني ودن يمن ليرا أباهي أيا نكا دقالين جرا وحان هيا بانكو يرسورو يمن أنو قوة جوغنو جو قرينا نخاط عننا waxaan hayaabaan ku iri jaajo sawirkii aan 2012 August ku galay safari gabar aan saaxiib nahay asxaab nahay iyo nin isaga saaxiibeen iskuursay arooskood iyagoo dhinacyada iga taagan bale ma intaas haysaa sooqa joolay baa maxkamaddii laga dhigay 20kii baarsame iyo cali waa taagan yihiin nin beesha cali kamida oo maanta Facebook gula jira taagan oo markhaati ah oo u yimin beeshaas wada dhexdhexaadin oo waliba caliga ay istilay وكير ورهداد اللي حادين ندكر وطلع نور سنجليا تحي نعامين كدحبح نيكي بتوجا جولاي بالقاري أرنتي مكان أرنتي مركان صوت جاي تاج كفيري اللي عليه صور كان هذيك متى مركز سبحوي ما قرنايو وحالي عبد الحكيم سو ما أنت قلت المامي ويان صور كان لما صور فوت الشابة وصور هنا علي وحالي كذابة تبين علي مرحلة دم كم فرق التناش وبريهم محمود سليمان كعايد جري أورنجري محمود سليمان بكن سمي محمود سليمان بكن سمي محكمة دي وحالي يستاج وحالي أنا كوس سفارة ونمكي بحر سوي قارك كذا استاج بالي مصطفى حاج علي وأنا كوس سفارة حكاية مكاسي بoston وعند حكينا بoston بكوين
والفريسة لي وعلي خليفة ورسمتك كاو استاك حقاك مكاس في السياطة وعد حكي من السياطة البقوقين فريسة لي كي أبشر بالي ورستاك حقاك أنت مكاس في من السوداء حافظ ويري بلمتو ما مكاس بقوقين استاك بالي كل جود وعلي كنسة مركا لغا ريب لبا قف oo gacanta taagan walla rag gabdhood oo kamid ah kuwii la socday oo iyagu nabadgelyo qaatay oo mid maxkamadda dhexdeeda uu ku furay ina koo safaar oo qabay oo yiri ma waxa heshiis la qaadatay ninkii dagaalku na dhex maray dagaalkana adaa igeliyay ina qaadibe gacanta taagan ay taagto waxay tiri ma jirto nabad baa qaatay wiil warsan galiyaan arrinta dhamiya hal kalmad oo beena wallahi baan u sheegay nacada tallah ala alkaadibiin dibkaasi aniga markii ugu dhacay 2014 waxa dhacday ma inay samri waayeen maxkamadda baan kaga soo guuleystay waa ka soo adkaad subaxii ciid carafo markaan salaadii ku soo guriga cusub baan deganahay kafashaka ku tukaday salaadii markaan soo tukaday ya albaabka lagu soo garaacay anoo iska yara jiifsado on wali soo quraacane hoostas baan waxa laga yiri sheriff waa police warqaday sidaan waa ka furo oh hi how are you waa laga yiri warqadahan ninba ka baqaya la yiraahdo Ali Cabdi Xirsi Cali Xaraare oo yiri uu dilaya warqadahan ho waa ninkan ka soo guuleystay beenta sheegay kadbaabkii weey warqadihii baan qaatay waa akhristay okay baan ku thank you maxkamadda baan u qabsaday maxkamadda baan iskugu nimi warqad waaliya ayuu soo qaato leeyahay waa xanuunsanaya warka markaas le oo maxaad ka shaqaysaa markaas uu yiri wariyana markaas le oo wariyan waa tahay haddana waa xanuunsanaya see wariyo u tahay waxaan keenay dokumentigiisi in Virginia lagu qabtay garaabo isagoo garaabo iibinay oo la xiray waxaan oo shaqadii laga geeriyay waxaan keenay inuu gabar yar ku kufsaday magaalada Minneapolis waraaqiban soo dhigay jaajo ninkan waa ninkaasay halkan bahal oo hina ka kaco wuxuu yiri jaajo waa la dilaya tarjumaanadii wallahi joog markaas le yaa ku dilaya markaas loo waxay bahar soo dhintay waxa la yiri yaa ku dilay markaas wuxuu yiri waxa idilaya Maxamuud Saleebaan jaajkiiba waa dhimanaya bin Maxamuud Saleebaan baa dilay ninkan Maxamuud Saleebaan baa lacag soo siiyay jaajkiiba intuu naxay siira arintana waa serious war maxaa jira wuxuu yiri Maxamuud Saleebaan adareyskiisa iyo magaciisa isbeeri caligi waa bado wuxuu yiri Maxamuud Saleebaan qof maaha waa qabiil waxay tagaan Puntland jaajki intuu saa u fiiriyay ayuu yiri waniyow nin waalan baa tahay kansa dacwaddaadaas ka bax meesha Maxamuud Saleebaan baa waxa jaajki uu moodayay ninkan dilaya ma aha hadda beeldan muu mooday waa yaab xaakimkan ku yiri xaakimo dadka maalin walba waxaan ku leeyahay dadka noocan Soomaaliya rekorkii maxkamaddu ku jira Ali Khaliif oday adeerkay ayuu ahaa maalin walba waa taageeri jiray garaadkoodan maalin walba taageeri jiray ilaahay baan ku dhaartay inaan kalmad been idin sheegeen markii aniga markii la caynay barigi aan garaadka taageeri jiray yaan garaadkooda waxaan diray garaad waa ku taageersanaa waa markuu Nairobi joogay garaadkaygii baa tahay kana dawarn maasijada anigu garaad jaamacad isku dirnay aan lahaa garaadkaygii baa tahay garaadkaygii buu miya diidaya yo intuu iskuun shaad ka qaaday inama yaryaro iyaga asiya oo markaas la igu soo caayay oo lay bariga aad garaadkayga ka daba carar jirtay waa barigaas ilaahay baan ku dhaartay inaan kalmad been idin sheegay bariga aad garaadkayga ka daba carar jirtay waa barigaas Soomaaliya maalin walba waxa aragteen war maxaa Cabdixakiin iyo reerkan isku diray war dhibaatada intaas leeg bay aniga igaarsiiyeen anoo shakhsi ah iyagoo qabiil oo isku kay wada daawanay Soomaali baan kala dhexgalin daarood baan kala dhexgalin harti baan kala dhexgalin war isku kay daawo Ali Khaliif maalin walba intuu media soo fariisto ayuu wuxuu yiri war hooy ma jeerteeno dhaqan haduu leeyahay ma jeerteen gabadh buu ka qabaa waaxidkiis واتلكيس ورموحد حدود كلمة تحكلون وايه أو هرتنمة تحكلون وايه أو دارنمة تحكلون وايه ورموحد النمة تحكليو هيك أمان والبعينة يا وردتو سياستها كوكل الدوان هذا
ما جرتين وان أقدها إن دارود وعليهم أو واحد بدون يعني إنك أنا جاي مع الولد محمد سليمان كنت عايز فيسبوك مع الولد أنا كهذا إني تذكر الدنيا بعلوم أنا وماشي أتقصف في فرد حتى العقدات يقوم قاد أنا عقدة يقوم قبل من العقدات هالقبة هذا الأرض ولانقاب حاسس أي واحد يقولي قواري هاي تهم أنك قبت البالة يرنكم ما الولد أنا أفلق الدنيا واحد تري بريان اسقور سنني ايانو اني علي كونترات كلا قال كونترات كاسو اها inaanu isna naagi la guursanin annaana siyaasadiisa faragelin Soomaaliya Ali Khaliif Galeer haddaad moodeen in uu dhulbahantihii dalka joogay oo kaliya dib ku hayo haddaad moodeen in uu dib ku hayo hartigii iyo daaroodnimadii haddaad moodeen inuu dhulbahanta gudihiisii dib ku hayo war Ali Khaliif wuxuu dib ku hayaa dhulbahantihii dibadda joogay علي خليف إنه ظالم إنه يحبنا نتصيح هذا ما هل ما يبغى واحد يكتصيح Soomaaliya haddayna waxba kala qarsanin waa ogtiin dhulbahante dadka waxay ka mid yihiin Soomaali ugu tacliinta badan ee aqoon-yahano badan ku jiraan maamul buu yiri waa sameynaya halkan ceebtii ugu weyneed ee Ali Khaliif halkan ka soo burqanaysa maamul buu yiri waa sameynaya geed hoostiisu tagayo wax khaatimo la yiraahdo sameys maamulkii markuu yiri waa sameynaya wuxuu yiri madaxweyne علي خليف ده هنا خليف قلب مدحوينه ده هاي ورودغي محو سو ودا وحو يري كخيغان عبد الله عقلوره وانين اديركيا وانين جامع سياده لكن انا خبير كنت افعل مايو كنت شيغيا عبد الله عقلوره وهانين قاب ولا لندن بو جوغي مركو halkan ugu yimir garaadka jaamac siyaada ayuu la socdo madaxweyne كخيغان fiir war imsanin oo dhul baan hadii la yiraahdo jagadan jaamac siyaad bale imsanin oo jaamac siyaado aqoon-yahana joogay kasi dara haddaan mid kale kasi waalan idin wada wuxuu yiri gudoomiyaha baarlamaanka oday u dhashay beesha Khaalid waa reemiyo biigu joogay geel buu lahaa meel geel ku hayst kaba sii dara hadaba faraha ka baxdo wasiirka arrimaha gudaha buu yiri kayse waa nin barkada waa nin miyi ka yimi mana qoro mana akhriyo darajo ciidan ma yaqaano waxa ugu badan iyo qana waa inuu gaari barana rida magaalada ugu sokaysu kaysa yimina waa burco oo markaas kaga yeesh ka soo caray ee lafcano waaligi tuulada wuxuu soo dhaafay wuxuu yiri wasiir arrimo gudadeed يوم العاب war ilaahay baan idin ku dhaarshay Soomaaliyeey ma isweydiiseen dhulbahanta markii Nairobi ay ku shirayeen ee Saleebaan Ciise xagla toosiyay lacagtiisii iyo maalkiisii intuu dhulbahanta galiyay Nairobi laga sameeyo urur la yiraahdo SSC ee Saada Cali Noolay ee markale la arkay Saleebaan Ciise Axmed Kaar xagla toosiyay oo hargeysa ka tagay maxaa Saleebaan kiciyay maxaa Saleebaan ka xanaajiyay maxaa xagla toosiyay geeyay hargeysa ragciil cadaabka dooray bal ragciil cadaabka dooray Saleebaan waxa geeyay inuu Soomaaliland ka dago oo magacii SSC u baabi'iyo dhibaato ay u geysteen garaad jaamac garaad cali iyo cali khaliif galay yaa ku xigay hadoo Saleebaan oo isaguna hargeysa ka dago ay nagu noqotay argagax garaadka beesha jaamac siyaad garaad Ismaaciil Ducaale oo ahayna adeerkay aanu saaxibna halkan uu noogu yimi sidaad ogeedeen baan soo dhaweyn markuu naga tagay bilka bacd waxaanu aragnay odagii garaadkii hargeysa lagu soo dhaweynay hargeysa waa wada Soomaaliland waa caasimada Soomaaliland isbedel siyaasadeed baa dhacay waxaan ku yiri garaad maxaa khaldamay wuxuu yiri wixii Saleebaan xagla toosiyay soo caydiyay ayay soo caydiyay aniguna adaan garaad ku hayo nin kale garaad humeeyay adaan garaad ku hayo nin kale garaad humeeyay باشا علي جوابها كحيجي وسبب إننا ليه أحمدها Soomaaliya وأوجد ما تريد كي يجيب حي هل كلمة أوبانا هتان شايفنا نعلط دي الله يقول عض هل كلمة أوبانا والله يبانو نشي يجي مات أفهم هذا علي خليف قال ما نقول حتى واحد الله قبنا يا شير مركب محكمة ولا شيء وكم حيا الله عكتا ولا شيء وسيف كرايو الله
Yeah, let me call you back. Waa kugu soo celinaya. Okay. Waxa dhacday hadda marka uu dhameeyo maxkamadaas walaashiis oo yimi uu gabdhaha talkee Maxamuud Garaad ee Umar Maxamuud ku dhale ee lagu dilayo waxay la baxday Rooda Puntland. War Puntlander waa magac. Puntland waa tol. Puntland waa Soomaali. Puntland waa tolka. Puntland waa xididka. Xishood Ali Khaliifo. xishood gabadha waxa lagu dilayaa maxay Puntlander wala baxda oo ma jeertaan u joog war ma jeertaa waa tiyaashid ma jeertaan waa tiyaashid uqdada iska saar war nin laandheeraata war nin daaroodata war nin hartiyata war nin dhulbahantaata uqdada iska saar uqdada ku dishay Ali Khaliifo markuu hadda maxkamadda ku bixiya $20,000 ee gabdhaha tolka وينهض الدعوة هذا قصوده ولا عدي محمود قراد لقى قري وكم بحيو يا واحد الله كرينا يا هول خدتي سنة دي ساخننا يا هدول ورهاي ما جارتارو ورهاي ما جارتارو ورسومالي الله وحبانا قد حيا ورهاي ما جارتارو نداجة وتاخذ بديس واخذ بدي على خلاك اسكون ما تقول بالو كري مدحوين صادا وبلي حلي waxaan xalay ku qoslay waxay ahayd wala waalad oo ay ugu dambeysay miir waxa ugu dambeeyay Ali Khaliif galeed oo calankii Soomaali sita ayaa miir ugu dambeeyay calankii Soomaali isagoo sita oo la khaatuman miir ugu dambeeyay waxay u tayeen iyagoo وكي هرجع دقا يريد خاطبه والسومالي ومركي سيناء يجوجي وعيوتا يديها حالك الصومالي وطا ورقور ما ميريد يكون دم بيسنين كان حالك صومالي وكي توري حالك سوالي قاتل لكن انت موصل صباحي وقدام بيتي وحن لايك نكو سوى قبيني صومالي خورد ما جيرتانو حلقات ما جيرتانو أنا وما أنت أهني جامع سيادة باش والبانتا بيلها وقلتم كوين إنه قالي أنا حالي بنسي أفهم هذا علي خليه فرط حالك قاطع واحد قبر للسيانة معها ما أنت هديان كفري كرا والله وكفري لها فرط حال قاطع أينو إريانو اسكو قبسنا كرسي إذن كنا نبوب عنا كنا ندرقل لكن واحد وكو هذا واحد نن عن عقدة الدشاي وكو هذا الله علي خليف ورما جيرتين سيدا هذا كلا وحوغات عصو ورما جيرتين قبسة كالركا كودك ورما جيرتين وانا دعدنا لكن ور هاي ور وحبا يسكمني ور وانو يسكنها ور انو حتى الصومالي اللي بنا امسنا هنا نحن ام صومالي اللي بنا تاغنا وانا نحن لكن دارشان نين هرتي انا دارشو نين هرتي انا ilaahay isku kaaya beerayan iyo ma jeertay oo daaro naga wada dhaliyay oo harti naga wada dhaliyay oo kablada naga wada dhaliyay meen diidaya laakiin siyaasadda ku kala qaybsanna adigu harti waxa diidan tahay daaroodnimadii waxa diidan tahay hartinimadii waxa diidan tahay tolnimadii war miyaa waalanta Soomaaliye waxaan live-kaygan ku soo gabagabeynaya waa u jeedaan wax dhidid iyo carayga baxaya dheeriga maxaa ka keenay baa leeyahay kuleyl Ali Khalifa dad moodee inuu ummadda kala dib ku hayo dibku annaga nugu hayo ayaa wax walba ka weyn dibku annaga nugu hayo ayaa wax walba ka weyn haddaan u dhubantana war waa idin soo sheegay war waa cararayo wuxuu isku dilay kalshaale habar jeclay dhubanta waa isku dhaleen waa isku deegaan intaasoo qof baa ku dhimantay war waa ka soo baxay wuxuu isku dilay Umar Maxamuud iyo Bahar Sam waa soo cararayna Bahar Samadii dad meel iska jooga oo maata oo xoolo dhaqata oo Umar Maxamuud ayay laayeen waa gaabaha yaqaanay wax kale ma yaqaanay wax suuqe taa wixii ka dhacay waa tiloga kabtay maaragta ka dhacday wuu soo cararayo tiknikadii magaca khaatuma lagu iibiyay war bal in ma adeerayaalow ilaahay baan idinku dhaarshay dhibkana haysta ayaan idin tusaya tiknikadii magaca khaatuma lagu iibiyay ayaa lagu laayay beel kamida beelay dhubantay meesha cabdi garaad eqaya wixii dhacay ninkii ogaa war waa cararo Nuur Axmed isku soo dilay war buu hoodo fariistayo
axmed garaad gudihiisu isku dilay buuhoodle cali wuxuu u fadhiyay inuu isku jabiyay axmed garaad laakiin maxay buuhoodle u burburi weyday maxaa dagaal sokeeye uga dhici waay dulqaadka beesha reer hagar ayuu uga dhici waay wax walba la isku dayay beesha reer hagar oo ah beelaha ugu tunka weyn deegaankaas cayn ayaa dulqaad muujiyay wax dagaalamay sameyn wixii loogaa baana dhacay maalin walba wuxuu buuhoodle ugu noqnoqdaa inuu dagaal ka rido oo beelaha halkaa degan isku dilo Soomaaliya ninkani waana dhiba ninkani dhibaatada uu annaga nagu hayo iyo dhibaatada uu ku hayo tolka iyo dhibaatada waa dhulbahanta maanta waxa geeri go'an ka dhigay waa Cali Khaliif war shilin kuma haro war shilin ku yeeraa dhulbahanta ma jiro war bal ilaahay baan idinku dhaarshay 1.5 million dollar ayaa waxa laga diray gobolka Minnesota oo kaliya 20 askari oo khaatimo meel jooga ma jirin ma la isweydiin lacagtaas xagee aada waxyaalaha aan la yaabay baan hadaba idin sheegaya cali markuu prime ministerka uu ka soo noqday dawladda Cabdiqaasim wax uu deegaanka dhulbaanta ceel Allah ka dhigay wax uu qabtay ay soo sheekara wax uu qabtay meel la yiraahdo Cali Khaliif baa ceelkan qoday oo maanta ceelkan waa ceel Cali Khaliif qoday ama iskuulkan Cali Khaliif baa dhisay bal ii sheega Soomaaliya ii sheega waxaad ii sheegtaan meel la yiraahdo Cali Khaliif baa dhisay ama iskuul la yiraahdo Cali Khaliif baa dhisay damiirka Cali Khaliif inuu dhintay baan idin sheegayaa markuu Soomaaliland tagay wuxuu tagay jaamacadihii rag baa dhistay adoo kala ah rag jaamiciyiina oo ama gada biirsi ama isaaq ayaa dhistay wadankooda dhistay war meeshu quruux weyn war waa jaamac war waa cali wuxuu la soo fakaday lacagtii warshadii sonkorta ee Soomaaliya meeluu ceel ka qoday ama guri ka dhisay ii sheeg meeluu ceel ka qoday ama guri ka dhisay ii sheeg dhulbahantu hal meel oo Cali Khaliif maanta wax ka qabta ard waa ninka ituus ard hadaydan qabiil ku taageerin ard xawaha ka xumaanina maanta sheekh Soomaali baa ceebta Cali Khaliif banaanka soo dhigay ha ka xumaanina wallahi banaankan keenaya iyo billahi taala waxaan maanta la haraya ma jirto Soomaalidu waxa ku maamaha nin qoyar BS kama dhowro xagala toosiyo cusbitaal ku kacay 900 oo kun oo dollar ayaa buuhoodla ka dhisan oo Saleeban xagala toosiyo dhisan xagala toosiyo magacu saabu xagala toosiyo ugu baxay markuu tagay baa dad gaajaysan oo dhibaataysan oo talkiisa ayuu caawiyay markaas la yiri xagla toosiyo xaglihii isku laabnaabu toosiyo way bal waxaad ii sheegtaan dhulbaantow Cali Khaliif prime minister buu soo noqday ilaa qabiil baynu ku daafacnaa kuwa qabiilka ku daafacayo meel uu Cali Khaliif wax ka qabtay ii sheega iskuulu dhisay ii sheeg ceel uu qoday ii sheega ma jiro waxa ugu badan oo Cali Khaliif qabtay waa inuu majeertaan caay oo ila waray ma jeertaan waa taas artaan leena har uqdad baydin dishay uqdada iska saara ma jeertaan hadaa wax la qaybsado ma jeertaan hadaa cadkiina ka dhacsanaysan ka dhacsada laakiin media la soo istaagin laba kalmadood oo uqdada Cali Khaliif galay colaadi nin baa ku dhinta wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho wuxuu hadda aad ugu sacabtumay colaadii maalinta dhaweyd ka dhacday tukarad Soomaaliland iyo Puntland waa laba maamulo daris wanaag iyo nabad baa loo baahan yahay loogama farxo colaad aad ugu sacabtumay garoobaan soo taabanana war ma soo taabatay adiga cararay markii Umar Maxamed ku baacsaday Soomaaliya live-ka waa ka baxaya dhamaantood horta aad baa u salaamantiin meel kasta joogtaan maanta waxaan live-ka u soo galay in aan idin tuso xaqiiqda Cali Khaliif magaaladan u yimi marka maxkamadda walaashiis uu soo dhameeyo hool baan u kireynaa war hay ma jeerteeno xalay markuu ka soo degay Minneapolis la fiiriyo bacdi oo ay amta kulu sita waa sitay sala oo jaamacad maalinka ah oo guriga kule magaalada bacdi ay amta kulu sita mar dhawaan soo galnay Facebook wuxuu lagu jaaj kareeyay walaashiis dadka
hadda nimar dhumaan soo gelinaya anu kelmad beena ma sheegin soomaaliya waxaan idinkaga tagayaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaali ilaahay bagooda bilcad ha isku marayo annaga waxa weeye dhulbahanta haddaanu nahay waxa dhaawacna gaarsiiyey oo victimka naga dhigay oo cidlada nagu xiray ee na kala dilay ee na baabiyey waa cali khaliif iyo garaadkiisa cali khaliif iyo garaadkiisa waxaan soo abaabulayaa mudaharaad ka dhana cali khaliif meesha xafladda loogu dhigayo ayaan mudaharaad ka hor dhigaya ummadda soomaaliyeed waa idiin soo sheegaya laysan baan u goosanayaa cali khaliif waan ku mudaharaadana soomaaliya aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu runtana kama xishoodo cidna kama baqo laakiin hal wax baan ka baqaa allah subxaanahu watacaala ilaahay ayaan ka baqaa qof bila aadmiya kama baqo runtana kama xishoodo hadday dacarta ka qaraarta noolaada